it is. You know my country very well, Excellency. You are insider. So many things. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta warqadiisa aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee dawladda India u qaabilsanaan doona dalka Soomaaliya Yesh Farma oo ah safiirka cusub ee dawladda India u qaabilsan Soomaaliya ayaa sidoo kale ah u qaabilsanaha dawladda India ee dalka Eritrea madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Yesh Farma ayaa ka wada hadlay arrimaha dhaqaalaha nabadgelyada burcadbadeeda iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya waxaana ugu dambeyn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud warqadiisa aqoonsiga ka gudoomay safiirka cusub ee dawladda India u fadhin doona dalka Soomaaliya. Excellency, my honor to bring and give it to you from the President of India documents, credential documents accrediting me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary on behalf of Government of India to the Republic of Somalia. wasiirka arrimaha dibadda iyo arrimaha dhiirigelinta ee maalgashiga dalka Soomaaliya Cabdullaahi Ducaale Bayle ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku guuleysatay in wadamo badan oo caalamka ka tirsan ay u soo diraan safiiro cusub waxaana uu tilmaamay in dawladaha India iyo Soomaaliya uu ka dhaxeeyo xiriir soo jireen ah waxa si badanaya oo kale kuwa halkan muqdisho dhexdeeda imanaya ayaa si badanaya aad iyo aad baan markaa ugu faraxsanahay in haddaan ka soo qaado dalka India waxa wada xasuusantiin wada garanaysaan 20 sanadood u dambeysay mooyaane intii ka horeysay in cilaaqaad aad iyo weyn naga dhaxeeyo wadankaas in dad badan oo Soomaaliyeed wax ku soo barteen oo madaxweynuhu ka mid yahay 20 sanadood ay dhowr iyo 20 sanadood dhibaatada wadankan haysatay haddana wali dad Soomaaliyeed oo taga baa jiray Yesh Farma oo ah safiirka dawladda India u fadhin doona dalka Soomaaliya ayaa sheegay in taariikh fog oo dhinaca siyaasadda ganacsiga iyo waxbarashada ah ay ka dhaxayso dawladaha India iyo Soomaaliya. India and Somalia go back in history. They have always enjoyed a historically very warm, friendly, civilizational and cultural affinity. We had very good relations in the past and the Somalian people have been very friendly. We honor and respect Somalian decision to have their own government, their own way of development. But historically speaking, India has always relished and enjoyed the friendly people of Somalia. dalka India waxa uu dhacaa Koonfur Aasiya waxa uu dhanka bariga xuduud la wadaagaa wadamada Pakistan, China, Nepal, Bhutan iyo Bangladesh waana wadanka toddobaad ee ugu weyn dunida dalka India waxyaabaha uu caanka ku yahay waxa kamid ah wax soo saarka dhinaca warshadaha sida dunta, daawada, cuntada, shamiitada iyo macdanta badankood dadka ku nool dalka India waa muslimiin halka dadka kale ee ku nool dalkaasina ay aaminsan yihiin diimaha kale ah Jainis, Hindus, Christian, Buddhist iyo Baha dalkan oo bari hore loo aqoon jiray Hindu ayaa bishii Agoosto 1947 ka xoroobay dalka Ingiriiska sidaas ayuuna waayaha wadamada ugu caansan dhinaca wax soo saarka dunida ugu mid noqday dalka India Aweys Maxamuud Jilcow Royal TV Muqdisho